seminaarkan lagu baranayay soo bandhigidda qabyo qoraalka doorka wacyigelinta codbixiyaha doorashooyinka iyo xog ururinta qaabka ugu fiican ee loogu gudbin karo wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed oo socon doona muddo 3 maalin ah kaasi uu soo qabanqaabiyay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. seminaarka ayaa waxaa ka faa'iideystay ururada bulshada rayidka xubno ka socday bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dhalinyarada Soomaaliyeed. gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yare ayaa ka warbixisay muhiimadda seminaarkan uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed. waxaan halkaan isugu nimid hotel Naasahab Lodwan in aan ku furno xog aruurin iyo xog isweydaarsi iyo sixid iyo ku darid manhajka wacyigelinta qodobada ugu waaweyn tiirarka ugu waaweyn ee dastuurka uu u qorayo sharciga doorashooyinka oo mas'uuliyadda ay ka saaran tahay waxa waaye inay wacyigelintii doorashada iyo wacyigelinta codbixiyaha uu guddigu diyaariyo si taas lagu diyaariyo marka wacyigelintaas waxaa qasaba in la helo manhaj 2 bilood ka hor waxaan diyaarinay la tashi la sameynay bulshaweynta mas'uuliyiin ka socotay gobolada dawlad goboleedyada ururada bulshada xisbiyada oo ah xubinta ugu weyn ee runtii masraxa doorashada ka qayb qaadata oo kuwa lagu tartama ay ayaga yihiin waxaa la isla soo bandhigay cutubiyada ugu waaweyn oo uu ka koobnaan doono manhajka iyo hagaha naftiisaba. manhajku waxa waaye habkii iyo sidii dadka wax loo bari lahaa, haguhuna waxa waaye tababaraha wax barayo buugi uu raaci lahaa uu wax ka bari lahaa. Muuse Cusmaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.